wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gobolka Gedo soo gaarsiisay agabka caafimaadka ee COVID-19 halkan waa garoonka degmada Doolo Soomaaliya wasiiro iyo saraakiil caafimaad oo waday agabka COVID-19 oo soo gaaray degmada Doolo Soomaaliya ayaa ku wareejiyay maamulada degmooyinka Doolo iyo Balxaawo iyo mas'uuliyiin kale agabka caafimaadka ee COVID-19 iyo dhaqaatiir sameyn doono tababar dhanka caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa ka warbixinaya deeqdan daawada ee gobolka ay soo gaarsiiyeen maanta iminka halkan waxaan u soo gaarnay in aan marka koobaad aan idin soo gudbino mucaawano kooban oo ka timid dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay idin garteen ayagoo idin soo salaamayay ka waxaan keenay gobolka Gedo guud ahaan laba diyaaradood ama laba mission oo kaliya daawo kaliya wado oo kala aaday baar dheere iyo Garbaharey iyo Doolow oo ayadana dhinaca oo Luuq iyo Balxaawo oo israacnay marka 5 degmo oo gobolka Gedo amaanta inay daawad kadib markii ay Doolow soo gaareen wafdigan ayaa waxay safar dhanka lugta ku aadeen degmada Balxaawo ee gobolka Gedo oo ah degmada kaliya ee gobolka lagu arkay kiiska xanuunka COVID-19 waxayna booqdeen xarunta karantiilka ee degmadaasi waxaana booqashadaasi qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji Macallim oo taliyaha xasilinta gobolka iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka Soomaaliya baan xaqra joodi loo gudbiyay maxamed salaam iyo wasiiradan oo soo gaari soona booqday gobolka Gedo gaar ahaan hadda degmada Balxaawo ku sugan wasaaradda caafimaadka aad baan ugu mahadcelinaynaa saaki waxay ka soo jawaabeen aan hore u tirnay insha Allah dowladdu waxaan rabnaa marka in ay madheer ku soo fiiriso halka aan joogno kulay wasiiradii ka soo baxay madaxtooyada hadda nala joogaan waxaan jeclahay inay baab degdeg ay geyn doonaan wasaaraddan aad bay maxaan kula ugu soo jawaabay waxyaabaha aan u dirnay waxaan aad u codsanaynaa qalabkii baaritaanka oo xamar meesha dhacaanada loo qaaday in la dhax keeno xaruntii gobolka la keeno meesha ligaada halka hadda xanuunku ka jira degmada Balxaawo iyo Doolow la keeno halka in la soo dhigo gobolka Gedo halka hadii la soo dhigo qofkii laga shakiyay daawadiisa degdeg lagu soo jawaabi karaa marka qalabka baaritaanka oo dhacaanada meesha xamar loo qaaday waxaan rabnaa in la keeno wasaaradda degdeg lagu soo jawaabo sida ay ku keeni lahayd talada ay gasho wasiiradana waxaan ka codsanaynaa insha Allah maadaama ay soo dul istaageen halka dhib uu ka jiray ayna maanta indhahooda ku arkayaan Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolo Soomaaliya.